cimrigiina raago cadowgiina loo jabi carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina ciidankii wacnaayoon cabku wali la oorano ciise naga mutaysto ciidankii wacnaayoon cabku wali la oorano ciise naga mutaysto geesiyada cirkeeniyo badda looga caabo caruur bow ducayno geesiyada cirkeeniyo badda looga caabo oo aan cirooliyo caruur bow ducayno carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina ciidankii dadkaygo callanka iyo ciidiyo loo carbiyey dalkaygo ciidankii dadkaygo callanka iyo ciidiyo loo carbiyey dalkaygo nabadeed cursin baan ku caana maale cimrigiina raage cadowgiina loo jabi nabadeed cursin baan ku caana maale cimrigiina raago cadowgiina loo jabi carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina carradiina udugale cududno difaacdiyo budlan curadadeedo aabid ciila mudanina inaan maanta halka ku aragno waxqabadkii iyo tababarkii aad qaadateen runtii waxay noo gelinaysaa farxad waxaana ka dhagaysan doonaa jananadii booliiska Soomaaliya soo xulay
soo xukumay bal iyagana qiimeyntooda marka dambe aan aragno waxaan rajaynayaa kolley inay ammaani doonaan baan filayaa maxaa yeelay wax walba waxaa asal ka ah sida wakhti loo geliyo guddigii dib u habaynta ciidamada oo runtii halka ila jooga muddadii sanadkii hadda la soo dhaafay ee 2020 shaqada la qabtay baaxaddeeda waxaa qiraya deganaanshaha nabadgelyo iyo deganaanshaha siyaasadeed iyo horumarka dhaqaale ee ka jira Puntland ay markhaanti waxa u ah shaqadaas inay si fiican u qabsoontay waxaad ogtihiin magaalooyinka waaweynaa ee Gaalkacyo Boosaaso iyo Qardho Garowe 2 sano ka hor waxaa aad ugu soo badanayay falal dambiyeedyada kala duwan waxaa kaloo soo badanayay dagaallo beeleedyo mararka qaarkood deegaanada dadka ka dhexdhaca waxaan markhaanti ka nahay ciidamadaas inay kulli ku wada guulaysteen oo maanta Puntland ay ku naaloonayso nabad iyo xasilooni waxay ka howlgaleen meel kasta oo wax laga soo sheegay ciidamadaas waxay ka howlgaleen Galdogob waxay ka howlgaleen Sanaag waxay ka howlgaleen Gardafuul waxay ka howlgaleen Bari waxay ka howlgaleen Karkaar waxay ka howlgaleen meel kasta oo looga baahday si degdeg ah ayay uga jawaabeen baahidii bulshadaas ay tabaysay waxaa hoos u dhacay faldambiyeedyadii ka dhici jiray magaalooyinka dabiiciga ah waxaana hoos u dhacay falalkii ay geysan jireen argagixisada waxaa intaas ilaahay mahadiis weeye in madax iyo shacab iyo mas'uuliyiin kaleba ay garatay waxa ugu muhiimsan si ay u noolaadaan inay tahay amni dawladdan awooddeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxay isugu geysay inay amniga ka shaqayso oo amniga ay uga shaqayso sidii hore ka duwan waagii hore waa laga shaqayn jiray laakiin ciidamadu xirfadooda iyo tababarkooda way hooseyn jirtay waxaa dugsigan soo galay ciidamo 9 sano furin ku jiray oo aanan tababar iska daayay marna xataa aan fasax helin waxaan ku dhiiranay iyagoo furmihii la maareeyay in tababar la galo waxaad ogtihiin gobolka Mudug oo dhan booliiskii baa laga soo qaaday shaqadiina waa socotay Karkaar iyo Nugaal waxa laga qaaday booliiskii shaqadiina waa socotay waxaa lagu dhiiraday in la helo ciidan kasta markuu tababar ku jiro ciidankii bedeli lahaa muddada uu tababarka ku jiro maxaa yeelay booliiska sidii uu magaalooyinka uga shaqayn jiray si socon karta ma ahayn booliis qori sita oo qofkii mudaharaado xabad afka ka gelinaya oo baabuurtu markay isku dhacaan meeshuu firimbi qaadan lahaa kor u ridaya xabadaha booliiska haysan saasi ahay waxaan rabnaa booliis xirfad ku shaqaynaya waxaan u baahannahay traffic aqoon ku shaqaynaysa waxaan u baahannahay dambi baare xirfad adeegsanaya waxaa Puntland ku yaala xarunta kaliya ee lagu baaro dambiyada ku yaala forensic science meesha lagu baaro markuu dambi dhawaco dhacaanada in la helo dambiilaha waxaad ogtihiin dilkii Caaisha waxa lagu guuleystay in la helo dambiilayaashii oo cadaaladda la mariyo waxa lagu guuleystay in dambiye fara badan baaritaankooda la helo laakiin aqoontu haddeen isku xiriirsanayn oo iskabaynin
oo ninka laabka jooga uusan helin dembi baarihii dembiga sida fiican u soo qaadi lahaa oo markii la caddeeyo aan la helin xeer ilaalintii ku habboonayd ee dacwadda ku oogi lahayd iyo maxkamaddii hufnaanta lahayd sida halka ka dhacaysa aad arkayseen lagu soo bandhigay oo aan ku qotomin sharci iyo qodob saxa oo la garan karo waxaan u baahannahay tayada ciidanka booliiska oo udubdhaxaadka amniga bulsho kasta ee meel ku nool ah inaan kor u qaadno waxaan rajaynayaa aqoontan ili baray ee aad sida googooska halka uga soo gudbiseen hadday ahaan lahayd markii ay dhacaan rabshadaha hadday ahaan lahayd markii ay dhacaan dad wax weerara hadday ahaan lahayd sida loo maxkamadeeyo sida loo saldhigyada loogu xiro sida dacwadaha loogu oogo waxaasoo dhan waxay sii hoos u sii dhigi doonaan dembiyada waxayna digniin u dirayaan dembiilayaasha waxaan rajaynayaa in ay ciidanka booliiska dembiilayaasha ay il dheer ku arkaan oo bulshada laga safeeyo dadka xunxun puntland waad ogtihiin waxay leedahay xabsiyo xabsigii qardho nagama fog gadaasheenna weeye xabsiyada ugu waaweyn ee dalka soomaaliya ku yaalla maanta puntland ay ku yaallaan waxaan rajaynaynaa in dembiilayaasha waajibkooda la mariyo in hoos loo dhigo xabadaha macno darrada ah ee magaalooyinka ka dhaca ee dadka laaya waxaad ogtihiin howlgal kasta oo boliisku geysto waxaa ku dhinta dad ama rayid ah ama ciidan ah waxaan rajaynayaa ciidamada iyagoo wakhti adag lagu jiro oo la kala garan la'yahay qofka dhagarqabaha iyo qofka kaleeto ayd foojignaanaysaan laakiin cabsi inaad iska saartaane foojignaan aad ku shaqaysaan maxaa yeele haddaad cabsi ku shaqaysaan waxaa dad isdifaacayaa noqonaysaan xabadda waa iska tuuraysaan marka shacabka puntland waxaan u dirayaa fariin inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharciga waxaan rajaynayaa dadka reer puntland waa dad xadaara leh inay xadaaradooda muujiyaan waxaan rajaynayaa waad ogtihiin nidaamka xisbiyada waa la furay ninkii dood qaba ninkii siyaasiyan dowladda mucaaradaya waxaa loo fura mimbarre ay ka hadlaan 10 urur siyaasadeed baa jira qofkii aragti siyaasadeed qaba xor buu u yahay laakiin waxaa marna la aqbali karin nin dhahay waxbaa ka mudaaharaadaya oo laamiyada iyo jidadka iyo guryaha dadka gubaaya oo baabi'inayo taayarre qarxinaya oo dana kale leh wax la aqbali kara ma ciidanka booliiska waxaa la rabaa dadkaas inay gacan ku dhigaan oo cadaaladda horgeeyaan waxaan u rajaynaynaa dadka baayadan dambe caadaystay iyagoo dano siyaasiyiin degaano kala jooga ka fulinaya inay dadka kiciyaan booliiskii hore waa ka duwan yahay waxaa dacwad lagu soo oogayaa meel kastoo aad joogtid oo dembi ku geshid facebookga xataa haddaad dembi ku geshid dembi baarayaashoo ku soo qabanayaan dembigu ma aha kan bannaanada lagu qabto keliya haddaad facebookga kacdoon iyo kicin iyo dil iyo balaayo ka shaqaysid ogow cadaaladda puntland waa ku arkaysaa ama magac gabdheed facebookga saarso ama mid odayeed saarso adiga ku taalla waa lagu soo qabanaya waxaan jeclahay inaan siyaasiyiinta caadaysatay oo tabar ka dhigatay dadka in la caayo war meeshaan xisbiyaha ka furanay kaalay oo aragtidiinna siyaasadeed sheega xukuumadda aragtida siyaasadeed waa caddahay waa tayeen iyo tiigsi idinkaa markhaanti ka ah sidaan ii tababarnay xeradaan maalintaan imise u ekeed waa ogeedeen isbeddelka ku dhaca ciidamada waa u jeedaan mushaharooyinka waxa ku dhac waa u jeedaan xisbiyadii dimuqraadiyaddaan furnay cadaaladda waa qodobada ugu weyn oon hadda ka shaqayn doonno horena uga shaqaynay
dariiqa aan ku shaqaynayno waa cad yahay isagoo waadixa ayay meel walba ku yaallaan waxaan rajaynaynaa intii aan sheegnay haddaan gaarno waa alxamdulilah haddii cid wax naga dhiman xataa haysa ha noo sheegto waxba dhiban male waa ku darayna kaasaa dhiban ha dhahan waayadan waxaa aada u socday brobagando badan oo laga sii daynayo dhibaatada ku timid hoosu dhaca ama dhaca shilinka ku yimid qiimo dhaca shilinka ku yimid dowladda puntland khaasatan xukuumaddan way la kuursatay mashaakilka qiimo dhaca shilinka maxaa yeelay puntland keliya ayaa waxay tahay cidda ilaalisa shilinkii soomaaliga inuu jiro wax badan oon halka aan ka sheegayn baa dhex galay isku dayo badan oo lagu hagaajinayaa la isku dayey wixii dowladda khubaradii u saartay ay keeneen waa fulinay doodihii iyo dhibaatooyinkii ka dhashay guddiyo kalean u saarnay daraasaddii ayaa la sii dheereeyey oo mashaakilkii baa la sii baaray oo go'aano kale iyo talooyin kalea la soo jeediyey iyagana waa qaadannay kuwa maalin dhoweyto garoowe iyo meelo ka mudaaharaadaya oo buundada goynaaye hadday ra'yi hayaan sida guddiyadaas kale ha noo keenaan wixii fiican waa qaadanaynaa laakiin dadka waxaa la rabaa inaan been gudcur inaan lagu sii dayn waxaan aad u rajaynayaa bulshadatan inay kala barato warka saxda ah iyo warka deelqaafka leh inay kala barato oo danaheeda ay ka shaqayso danaheeda waxay ku jirtaa deganaansho siyaasadeed danaheeda waxay ku jirtaa deganaansho amni danaheeda waxay ku jirtaa koboc dhaqaale danaheeda waxay ku jirtaa degaanada kaleeta ee soomaalida iyo dowladdii soomaaliyeed siday gacan uga geysan lahayd sidii ay soomaaliya uga bixi lahayd dhibaatada jirta waxaan haysannaa waxaanan degaanadu kala haysan waxaan haysannaa amni ilaahay mahaddiis waxaan haysannaa maamul u heelan inuu ummaddiisa u shaqeeyo waxaan la jecelnahay soomaaliya inteeda kale inay sidaanoo kale noqoto waxaan har iyo habeen u taagannahay soomaaliya sidii loo sixi lahaa nidaamkeeda siyaasiga inaan gacan ka geysanno laakiin waxaa marna madax iyo shacab reer puntland aanan marna gal ka ahayn in waddada soomaaliya lagu soo celinayo intii la qalloociyo la yidhaahda iska samra dalku haadaanaha ku dhacee taas ma soo bayrayso wixii aan u aragna inay khaldan yihiin waa sheegayna waxaan rabnaa dalkan mar buu khaldamay burbur galay dadkiisu isnaceen kala irdhoobeen waxaan rabnaa inuu si saxa u dhismo oo mar dambe maamulka dowladeed ama kan puntland ha ahaado ama kan soomaaliyeed ha ahaadee inuusan burburin waxaad og tihiin madaxweynihii lixaad baan ahay ee puntland soo mara marka laga tago madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo madaxweyne maxamed cabdixaashi oo muddo yar hayey afarta kale oo anugu afar ku ahay kulligood waxaa la doortay 8 janaayo hal maalin baa la wada doortay marna kama dabdhicin marna kuma horumarin waxaa iskale fadligeeda shacabka reer puntland oo ilaaliyey wixii heshiiska ku hayeen soomaali waxaa la rabaa dowladnimadeedana waxa heshiiska lagu yahay in la wada ilaaliyo oo marxaladda hadda lagu jiro ee kufaakaca ah in laga baxaa la rabaa caqabado waa imaanayaan maxaa yeelay dal kala tegey weeye in loo dulqaataa la rabaa waxaa la rabaa si saxa in lagu saxo waxaan aad u rajaynayaa in soomaaliya ilaahay idankiis 2021 isbeddel wanaagsan oo loo naaloodo oo mustaqbalka loo aayo oo deganaansho iyo horumar horseeda inuu ka dhacan ilaahay idinkii rajaynayna waxaan idinkana inii rajaynayaa shaqadiina inay sida ugu fiican oo ugu quruxda badan inaad u gudataan waxaan inii rajaynayaa inaad wixii aad barateen mujtamaciina aad uga faa'iidaysaan muddadii aad halka ku jirteen ee 4 bilood iyo siyaadada ahayd sidaad ugu soo dhabar adeegeen iyo sida aad runtii isu ogolaateen iyo sida aad ugu dulqaadateen casharadii adkaa ee halkii la siinayey waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka anfici doonto magaalooyinka iyo saldhigyada puntland bulshada puntland inay arki doonto isbeddel muuqda oo la taaban karo intaasna ligama harayo tababar baa la siiyey waxaa la siin doonaa haddii ilaahay agabkaa ku shaqayn lahaydeen
waxaad heli doontaan mushaharooyin inugu filan waxaad heli doontaan tababaro joogto ah oo xirfadaha kala duwan ah waxaad heli doontaan kormeer joogto ah iyo wada shaqayn dhow oo dawladdu inla yeelan doonto caqabadaha inugu yimaadana waxaan diyaar u nahay hadba intii tabartayna inaan ka gudubno maanta iyo sanad ka hor sidii la ahaa maanta idinkaa markhaanti ka ah isbeddelka xeradan mar kastoo aan ku soo noqonno isbeddel hor laan u aragnaa dhismayaal hor laan u aragnaa tababarka hore ka sarreeyaan aragnaa askartii la geeyey baan aragnaa waxaan arkaynaa dhallinyaradii ku soo dhiiranaysa ciidamada waxaan arkaynaa saraakiil qarsoon oo fursado waayey oo soo baxaya arkaynaa waxaan arkaynaa madax cusub oo la rajaynayo inay gacanta ku dhigaan amniga iyo dalka puntland waxaan rajaynaynaa saraakiisha hadda gacanta ku haysa haddii aysan ka shaqayn ciddii beddeli lahayd haddii dalka dembi bay ka geli lahaayeen waxaan uga mahad celinayaa saraakiisha ka shaqaysa inay soo saaraan ciidamo u habboon inay sii wadaan xirfadda ciidan ee bulshadan ay u baahan tahay kala dambaynta in la ilaaliyo waxaan aad ugu rajo weynahay in wax kastoo dulduleello ah oo duruuftii dheerayd ee dalku soo maray sababaysay in laga baxo waxaan ku dardaarmayaa ugu dambaysa oo ceeb ku ahaan jirta ciidamadoo dhan gaar ahaanna booliiska agabka booliiska loo keeno inta badan muddo yar ayaan daryeel u helno u talfaa dadka baabuurtooda si fiican bay u haystaan baabuurta dawladda oo wada cusub sanadka bacdi waxaa la arkaa isagoo kudaafad u eg waxaan insha allah iniin rajaynayaa baabuurtan cusub ee hadda hortiinna taalla iyo kuwa horeo yaallay iyo ciidamada guud ahaan xoolahan waa xoolihiin dhaqanka ah waxa dawladdu leedahay inay belan leedahay waxaan rajaynayaa in laga baxo waxaan rajaynayaa inuu qof walba waxa uu dawladda u hayo wixiisa ay noqdaan oo ku fara adeego oo uu xanaaneeyo oo uu dhaqaaleeyo oo maalinta shaqada ka dhammaatana kan ka dambeeya ku shaqaynaya uu ku wareejiyo puntland way ku ammaanan tahay xaraq isku dhiibka iyo isku beddelka iyo in cid walba ciddii markii la diibo agabkeeda laakiin dulduleello iyo ceebana waa leenahay ceebaheenna haddaan qarsanno wayna qarsanayaan waxa ceebta aan leenahay ma qarsanayno marka waxaan rajaynayaa tababarkaan markaa ka baxdaan inaad aragti cusub iyo ruux cusub inaad la soo baxdaan saraakiisha inay hoggaamin lahaydna tababar kale ku jiraan sida la sheegay waxaan rajaynayaa tababarayaal dad wada tababartay oo nin walba uu yaqaano waajibkiisa halka sarkaalkii ka hadlayey oo casharrada akhrinayey wuxuu casharrada ku jirtay taliyayaasha qaybaha mas-uuliyaddooda saldhigga dembi baarista sida wax walba oo ciidan booliis laga rabay waana la siiyey sidaa u kala dambayn lahaydeen sidaad isku xukumi lahaydeen sidaa bulshada ugu shaqayn lahaydeen marka waxaan rajaynayaa xirfaddaasi inay bulshada ay ka dhex muuqato haddana way muuqataa waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay runtii saraakiisha la taliyayaasha ahaa ee wakhtiga badan geliyey uu jenaraal bashiir nagala dooro iyo allah u naxariistay jenaraal khaliif oo isagana runtii wakhti badan geliyey waxaan rajaynayaa saraakiisha kaleeto iyagana jooga oo mar walba u taagnaa oo guddiga hadda shaqada haya dhinaca xirfadda ciidanka ka kaalmeeya oo faraha badan iyo madaxtooyadaba waan uga mahad celinayaa shaqadan quruxda badan shalay riye ahayd maanta laakiin xaqiiqo jirta weeye aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu